magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaadhka u ah dawlad goboleedka Jubbaland waxa goor dhaweyd ka bilaabmay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo go'aankii ay dawladdu ka qaadatay diyaaradaha taga magaalada Kismaayo. dibadbaxan ayaa looga soo horjeedaa cunaqabataynta iyo xiraadda diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay deegaanada Jubbaland. boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo kuwaas oo sita boodhar ka dhana dawladda Soomaaliya. waxa xayiran guud ahaanba goobihii ganacsiga magaalada waxaana dadku ku qaylinayaan ereyo ka dhana dawladda Soomaaliya. hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa hore waxay u soo saartay awaamiir ay ku amrayso in diyaaradaha rakaabka sida ee u duulaya magaalada Kismaayo ay soo maraan magaalada Muqdisho. sidoo kalena diyaaradaha kale iyaguna duulimaadyada ku tagaya magaalada Kismaayo ayaa waxa waajib lagaga dhigay inay maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. arrintani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu isu diyaarinayo caleemasaarkiisa. dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland ayaa xiriirkooda xumaa muddooyinkii u dambeeyay. sidoo kale waxa xiisad diblomaasiyadeed dawladda Soomaaliya ay kala dhaxaysaa dalka Kenya oo ciidamada ugu badan ay u joogaan magaalada Kismaayo.